الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت مضاود الكسر وهذا برامج ورادك جنالك حولك ورادك قضبة أن يدنكو كسر قدن دون وحقيبك نقنية مدحوينا حسن شيخ محمود وقضبة علوس كلية شيء مدحنا ذلك إماراتك عربتها دوام محاكمة قضبة اللابد دينايكو شيء محيس نقن كران وكل دوان أوسر دون أو كوكذا من أيام يدنكو كسر قدن دون رئيس الوزراء مقعابنا حمزة عبد البر وحالي هويغودا siyaabo kala duwan ugu booqda qaar kamid ah musharaxiintii u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo ololo ugu jiro meelmarintiisa magacaabista qodobada kale aad maqli doontaan waxa qayb ka noqonaya maamulka Galmudug ee Axmed Qoorqoor oo ku fashilmay sugidda amniga Galmudug oo hadda wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo al-shabaab looga saar lahaa deegaanka ka tirsan Galmudug iyo sidoo kale qodobo kale oo ku gadaamanayaan idinku soo gudbin doona qodobadaas iyo qodobo kale hadba wixii nagu soo kordha faahfaahintooda ayaad ku maqli doontaan barnaamij wareedka janaalka xulka wararka fadlan hadda janaalka ku cusubta waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe like share iyo intuba inaad nala wadaagto ku soo dhawaada barnaamij wareedkii oo dhameystiran madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qodobo culus ku leeshiya madaxda dalka Imaaraadka Carabta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho 2 maalin qaadanaysa ku jooga magaalada Abu Dhabi ee caasimadda wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta inkastoo safarkiisu uu 2 maalin oo dheeri ah ku darsaday ayaa waxaa qasriga madaxtooyada ee Abu Dhabi ku qaabilay madaxweynaha wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed Zayed Al Nahyan waxaana la xaqiijiyay in ay taageero joogto ah ayna waxba kala reeban doonin Imaaraadka Carabta ay siiso dadka Soomaaliyeed si ay u guuleystaan hamigooda horumarineed xasilooni barwaaqo iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan oo shacabka ay helaan sida laga soo xigtay madaxweynaha Isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Zayed ayaa hadalkaani sheegay kadib markii uu qasriga madaxtooyada Abu Dhabi ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Imaaraadka Carabta ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay inuu si weyn u soo dhaweynayo booqashada hogaamiyaha Soomaaliya wuxuuna ugu hambaliyay xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ee uu dhawaan la wareegay isagoo u rajeeyay inuu ku guuleysto hogaaminta dalkiisa iyo kamar dhalinta himilooyinka shacabkiisa ee ku aadan xasiloonida horumarka iyo nabadda sida uu sheegay madaxweynaha Isutaga Imaaraadka Carabta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna dhankiisa waxa uu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay mowqifka taariikhiga ah ee Imaaraadka Carabta uu ku garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed isagoo ugu mahad celiyay dareenkiisa dhiiranaanta ah ee Sheekh Mohammed Zayed Al Nahyan uu u muujiyay shacabka Soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta iskaashiga ka dhaxeeya labada dal iyo dhinacyo kala duwan gaar ahaan dhinacyada horumarka iyada oo labada dhinac ay ka wada hadleen dadaalada loogu jiro nabadda ka dhalinta gudaha wadanka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Isutaga Imaaraadka Carabta Mohammed ibn Zayed Al Nahyan ayaa xaqiijiyay in Imaaraadka ay ka go'an tahay in ay shacabka Soomaaliyeed ka taageeraan dadaalada dowladiskooda ee ku wajahan mustaqbal nabadeed iyo mid xasilooni isaga oo carabka ku adkeeyay sida ay Imaaraadka u doonayaan in ay xoojiyaan dadaalada dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kala duwan ee ku aadan dhinacyada dhismaha horumarka iyo xasiloonida waxa sidoo kale la soo waramayaa in ay jiraan kulanka inta uu socdo lagu soo hadal qaaday ama ballanqaadyo tiro badan Imaaraadka ay u sameeyeen Soomaaliya taasi oo ku aadan in ay ka gacan siiyaan sugidda amniga iyo sidii looga adkaan lahaa xarakada al-shabaab sida lagu sheegay ilaa wareegyo kala duwan oo inoo xaqiijinaya in labada dhinac ay ku wada heshiiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu 19 bishan Juun uu ka dhoofay magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoo oo magaalada Abu Dhabi ku wajahan booqashada madaxweynaha ayaa waxa ay daaraneed in muddo 2 maalin oo kaliya uu qaato hayeeshee ay waqtigii ay ku joogeen booqashada 2 maalin oo dheeri ah lagu daray waxaana shalay dib u dhacday dhaarinta iyo sidoo kale in la meel mariyo ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya
mudane xamse cabdi barre taas oo loo sababeynayo dib u dhaca booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu ku joogay isutaga imaaraadka carabta. warar kala duwan oo baraha bulshada lagu qorayay ayaa muujinayay in booqashada wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay qaarkood laga helay xubnaha in COVID-19 uu ku dhacay iyada oo karantiin 2 maalin ah la geliyay, inkastoo aanan wararkaasi la isla dhexmarayay aanan la xaqiijin karin. ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xamse cabdi barre ayaa siyaabo kala duwan waxa hoyga kala duwan ay muqdisho ka degan yihiin qaar ka mid ah musharaxiintii u taagnayd xilka madaxweynaha waxa uu ku booqday magaalada caasimadda ee muqdisho. ra'iisul wasaaraha magacaaban ee jamhuuriyadda Soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu xalay u booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka degan aaga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo ayaana waxa uu u rajeeyay ra'iisul wasaaraha in uu Rabbi u fududeeyo mas'uuliyadda qaran ee uu dalka iyo dadkuba u qabtay, wuxuuna la wadaagay talooyin ku aadan sidii dalka horay loogu wadi lahaa. dhinaca kale, ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa isla xalay waxa uu salaan ugu tagay madaxweynihii 8aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ra'iisul wasaaraha u rajeeyay in uu ugu guuleeyo mas'uuliyadda qaran ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay. ra'iisul wasaare xamse ayaa madaxweyne Shariif ka dhageystay talooyin iyo tusaalooyin tiro badan oo ku aadan howlaha horyaala marka uu helo kalsoonida golaha shacabka ee Soomaaliya. shalay oo Arbacad ayaa waxa uu qorshe u ahaa in ra'iisul wasaare xamse cabdi barre la horgeeyo baarlamaanka si loogu qaado codka kalsoonida, balse qorshahaasi ayaa waxaa dib u dhigay safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee Abu Dhabi uu ku joogay, isla markaana dib u dhac uu ku yimiday. xamse cabdi barre ayaa waxa uu sidoo kale booqday hoyga ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane xasan cali kheyre, isagoo sidoo kale halkaasi lagu soo dhaweeyay, waxaana labada dhinac la sheegay in ay inta badan la fagureen xaaladda kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya. xamse cabdi barre ra'iisul wasaaraha magacaaban ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxaa xilkan u magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo oo sugaya codka kalsoonida ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ay ugu qaadaan. qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamij wareedka janaalka xulka wararka ayaan isla soo gaarnay, markaana haddii aanu eegno qodobkeena ugu dambeeya, maamulka Galmudug ee Axmed Qoorqoor ee ku fashilmay sugidda amniga deegaanada Galmudug ayaa hadda waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan uu kaga soo horjeedo xarakada Al-Shabaab. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu shir gudoomiyay shirka amniga Galmudug kaas oo ka qabsoomay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo saraakiil la sheegay in ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin, isla markaana diiradda lagu saarayay xaaladda guud ee amniga Galmudug iyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay hor leh ay ku sugan yihiin. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Galmudug ay had iyo goor ay u taagan tahay ka hortagidda baacsiga waxa uu ku sheegay xarakada Al-Shabaab. sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in uu ku ammaanayo ciidamada qalabka sida ay markasta ay u taagan yihiin sugidda amniga iyo ka hortagidda dhib kasta oo kaga yimaada dhanka xarakada Al-Shabaab. waxa uu ciidamada kala dul dhacay ammaan kadib markii toddobaadkii hore dhamadkiisa ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen deegaanka Baxdo oo dhaca gobolka Mudug, halkaas oo ciidamada dowladda Soomaaliya guulo muhiim ahi ay ka sheegteen in ay ka gaareen dagaalkii Al-Shabaab ay kula galeen. guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamij wareedka janaalka xulka wararka aad ka daawanayseen. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.